soo dhawaada saaxiibayaal. Kani waa qaalinkii la rabay geel in baarqabka looga dhigo insha allah. Halaha irmaanku raaci jiray maalmahan raacay marka xalay baa hal yimaadeen isagoo la soconin. Kulley waa iska garanay inuu halayow kala cayrsaday marka saaka waan kala lahay. saaka markaan kala lahayna meel dhexe buu ilaahay iga siiyey isagoo awra la jooga oo reerkii aan ku tuhmayay baan oon gaadhin baan meel cidla ah guuxiis ka maqlay oo markaan ku leexdayna isagoo awra la joogaan u tegey. marka hadda waa aniga wada. hadda wixii ka dambeeyay waxaan u malayn inuu awrta la daaqi doono. marka hore waxaan islahayn ku gadaala bartaalaha oo intuu maaragtay iska caydhsado habeer gooyaan islahayn, laakiin hadda isagii baa halis ku jira, waana qooqan yahay. marka waxaa lagu samayn doonaa awrta unbuu la foofi doonaa. hadda wixii ka dambeeya awrta lagu seeteyn doonaa. ina ebyan baa la yidhaahdaa qaalinkan. ina ebyan hal cad oo caano badan baa dhashay, isaguna qaabkeedii waa u baxay. hirti fiicanna wuu dhalay. hadda waxaa lagu jira waa gu insha allah. deyrta soo socota wuu jimli doonaa. deyr soo socota isagoo oo hirti xoog ah ayuu geela qumin doonaa.
ragga geela wax ka yaqaani awey rtigan ka warrama niman yahow rtigan baarqab ma laga dhigi karaa annagu kolley baarqab baan u dooranay calaamadaha rtiga lagu garto baarqabkaana waxaa ka mid ah horta marka ugu horreysa rtiga waa inay hooyo fiican dhashay waa marka labaad waa inuu rti fiican dhalay waa marka saddexaad waa inuu rtigu caddiin yahay waa marka afraad waa inuu laf leeyahay waa inuu sanqaroor dheer leeyahay rogan waa in sayntu shullaha joogto haddii la heri karo waa inuusan leexa yeelanin oo kurus toosan yeesho waa inuu yahay nooca la yidhaahdo hoorka rtigu hoorka ama nooca goodirka loo yaqaano waa inuu yahay rtigan intaaba waa kulansaday reerkii baan soo gaarnay saaxiibayaal saaka laakiin halaha la dareer uu mahayo si uu sii dalaq leeyahay rkaa is leeyahay halihii baa lagugu daray hawshaas waa ka wareegtay ninkan odayga ah hadda wixii ka dambeeya awrtu iskala daaq doona rtiga kan qolyaanu ka soo kaxaysanay waxaan rabnay inaan geela ku darsanno marka waa qooqi waaye dayr horow 2 geel ku qooqanaa baa la yidhi marka guuxba waa laga waayeba karti kalaa lagu daray geelii oo halkan halihii irmaanaaba sii hagaajinhayaa saaka qaalintaa madow baa caanihii naga cabtay geela qaar waxaa jira caanaha haddii meel bannaan loo dhiga cabo oo aan lagu soo gaadhin waa geela noocaas weeye hashani marka saaka caanihii hashani way naga cabtay kuweedii iyo haala kale caanahoodba waa isku darsatay laakiin waxaan ku fiicnaanay hashanoo haljileed ahoo fiican iyo tog kalaa noo harsanaa markaas labadaasaan saaka yaanu isku darsannay oo ilaahay nagu caymiyey maahaane saaka begees baa la cabbi lahaa begees
geedkana la boobahayaa waxaa lagu qaaday hoobiye hidooy waa dhafaruur faraq leh oo subax joogta hashan kuruskeeda waxa ku yaalla soo habeed maaha yaa markaa maa maxay habeed urtigu ma shafku habeed ku lahaa shartibaa shalay abaahiiban meelaha ku abaahiiban u malaynaya niyo habeeddaa kurusku maxay ahayd halkan waa isgoyskii wiilka barnaamij gaaban baan kolley maal dhaweyd ka sameeyey marka reerka agtiisuu ku yaallaa xagga maan cagafta ula rogeynaa halaha meesha waa isgoys laba cagaf baa isku gooya isgoyskaa weeyaan marka halaha xagga toontaynu u dareerinaynaa insha allah oo fiican xoogaa baynu cagafta yar qaadsiinaynaa halkaasay baanu kaga hadhaynaa insha allah nafaqo badan baa saa ku maqan nafaqo badan maalin dhaweydna naaxiyaan ku riday kani naaxiye la dhaho waxaan u malayn inay rimi doonto inay malool rimi doontaan u malayn waxaa nafaqa ku maqan baan arkaa meeshan kolkaad doonaysa inaad
taleefon dirsato waa inaad geedka hareeriga soo sudho taleefonka. weliba taleefanada yararka ah ee danka hadasha mooyaane taleefanada waaweyn ma baxaan. marka taleefanada yarar baa intii dun lagu xidho ama xarig yar lagu xidho yaa meelahan laga soo laalaadiyaa. markaasi caadi baad u maqlay qofkaad rabto inaad wacdo oo kugu bixi taleefonku. hadda anigoo kaa taleefonkaygii waan dirsaday, qof baan hadda wacahayaa. okay